bankan waxa aan ku yahay caawilka iyo waa u sheegtay gorayada Soomaa waxaan ka dambaysaa deerada tanaag ma aragta saan noqday waxaan isticmaalnay xeeb ha luqintu way xeeb la yiraahdaa hoogaas waxaan soo dalnay dibal la yiraahdo way ma haysataan mobil weyn ما حماس internet ma shaqeeyo xagan internet ma taqaanaan ba أنا حرام الجو ya xoolaha bala joogtaa magaalada fiqi aad waa ka mamnuuc ina geedaha la jaro halkani waa meesha fanka casriga Soomaaliyeed laga bilaabay balwoy hoy balwoy waxa ibale haye yey mooyaanay haye balwoy hoy balwoy haye waxaan joognaa banka Garyaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وأنتم جيدسان waxaan joognaa hadda Sayla waxaad daawateen muqaadi jasiiradaha waxaan ka qaatay dhowr cisho khadar ku soo dhawaad geedisahan haya waxaan uga caawiyay dhowr cisho haya reerka tahay toora aad baa maartay muddo kooban oo joogay magaalada Sayla aad buu joogu wacnaa xilliga jilaalka magaaladu waa qabowdahay kuleyl ma jiro waa xeebad qabowga aad macaan joogo in badan ma soo noqonaya xaga kasta waxaan ku raadinaa jilaalka saxan ku qoranay okay safarkan waxaan u soconay ilaa بورما waxaan dadka tusunaa dariiqa ama wadada magaalada waxaan ka bartay ereyga dariiqa mar walba dariiqa dhahan wadada loo socdo waxaan sii mari doonaa banka Guwen ee Garyaad oo ban taariikhiya insha Allah markaasaan sii marnay ilaa iyo buuraha waaweyn way gaarigan aan wadanay gaarigan muddo 6 cisho insha Allah barina ku darsanaa way safarku dheer yahay buuraha waxaan kori doonaa Libaxley iyo gaarkeeda soo maraya safarka waxaan raadinaa goroyo soo ciyaalka soo wadiina xagan ku nool xagee laga heli kara goroyada ma garatay way banka wada goroyo weeyaa السلام عليكم سكوروا ما هيسان مقعا محمد أديكنا أنا موليد أيوه موليد عدي عسكتي لبدينا أربعة أراسنا هذا روح عليك مسجرات هاي أنا لا بتجربة أديكنا أنا مقرأ كاري سودو كاري عندنا مقعا يا عبد السلام عجب عبد السلام عبد السلام ولا ولا لا تيني كان هذا بكوي هاي أنا ولا شاوية ولا لا موبل وين ما يستان موبل وين ما حماس انترنت مش شقي حاجة انترنت ما تقارن با أنا حرام الجو يا ولا ما ندق ولا ما بلا شكتها محمود عول ماشي عول بملجي ديار جوجتي ولا ضف لو كسويدو قلت شو مش عم يسمي هذا لا ولا قريبا وقطف أبي سدا سكيل على سامي سدا كلا هذه سكيل على ساعة سكيل على سامي سدا أنا جيت وخير وأنا كبر ماشي منا كبر هذا كيس هذا باش هذا دارت الهوجي كويس هوجي كشرتها هوجي فقط تال هوجي كويس هذا ما قرت هذا ما كان كويس شيء ها يجيك كل مسا هيك توصل دروا مية قرا وين ورابي ورا مش كذا ورا هذيك ما كنت واحد سيبالي دمنا سيدي تلاقي واحد ها كمدو ها كوخ عاول لكم يا كوخ على دومنا ما عرفت كوخ على دومنا يا كوخ يا شو كوش عادي وضف مو كذي أبا مقيس أبا سلام هنا سلاماتي يقول سلام واحد هذا خضر يوجد سالنا صو سلام حقا عول جيل ما ديرو مبياله قريب ماله ما ندري قريب لا تورتل إيه جرنوي عند واحد دامنا جيت جرنوي عند دامنا مياه سوينا هلنا درة ده هير كمان قالنا مش كسر كيس أنت كسر هيك هي قادرة إيه عن سلم حلقة عن طلاب بس عن حسب فين ويدي حاول لابس سامك أنت فريد قبورتك كيف عندك 5 سامية فريد بات فرت لك ما في قبورها والله قبورتنا فراغ مثلا هو احترام قبورتك عندك قبور قد ماشي قبور باحقة قبور تاسع ليس ها لو قبورات شيء كذا احترام مركا فرت احترام دور فرت ساعة قبور تقول
واتا وحنا waata labada والله ragga nolol wanaagsan ku nolol nool wanaagsan ay leeyihiin way adeer waa maasantiin weeyaan waa si socona waa raadina gorayo ya banka magaciid bankan بانكي دولكا. عدافور 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 بنا cabdiqafur ya waa kuma kaas يا يا qof magaciisa مي وادولك إله وادولك ذا هالكا يا قبورة أملايو عدافور حتى جيت أنا قاعد جيت cabdiqafur gaacur baa la gaacul قاعد nolosha ugu wanaagsan ku nool nolol wanaagsan nafsi ku leeyahay no internet nothing waxba way waa maasantiin qurux badan adoo maasantiin yaa hadda waxaan soo gaarnay deerada soo arkaysaan waxaa naga dambeysaa deerada waxa weeyaan oo gurub u socdaan marka waa kuwa ordaya waa arkaysaa waa kuwa ordaya markaan arkeen waxaan sameynaa hadda doorana ku qaadanaa waxa weeye bankana iyada iyo waxa ku nool gorayada bankan waxaa ku nool deero cawl iyo maxaan ku rahdaa sidoo kale gorayo ayaa ku nool waa ban aad u nimcad badan daroontan ku haynaa xayawaanka soo aragtaan waa kan geedisahan oo dareenta duubaya fiiri aaway waa ku hayo maaragtay qurxanti kaali soo gudaha qoraxda aan ku qabay sida qoraxda wanaga fogaanaysa hadda gaariga ku tagno maaragtay bankan waxa caan ku yahay caawilka iyo waa u sheegtay gorayada Soomaal aad teetana dadka kaalaya meeshan waraabana ku yahay yaa garatay ma sha Allah wallahi ma filanayna banka leedahay waxaas mugta ilaa baytarka intuu dhamaanayo oo ku hayo oo ku yareynaya afata dhinaca kaga imanaya ariga u soo celi dhinaciina soo xawliba soo ma ka qaada horta ka qaado qurux war ugu yaraan hadda leeyahay soo gal waxa weeyaan cotton eeg xagaa maaragtay kuwaas ha cotton xabo ugu yaraan kanaan u daawanayaa daba dhigo horta waan soo helnay waxaan noo dirtay ma garata waan soo helnay ninkan iyo walaalkaa magaciisa horta mawliid waan noo diray haye waa kan gorayada waa kan صوت ما ها واسوي وين اريدي ايوه يعس ويا عسى ده بهال يران هيا بهال شاسو كريدي باركتا ما دad qatasna waa kan gorayadi anaga eriyana doronta tusna وين يعس dadka ka jecla ha okay yaasa awlkan ku tusiya awlkan ma waa kan awlkan ma aragta ايوه واتعب ya واكيس ha waa kan arad dadku okay waa kan ma aragtan dadkan tusna hay meel wanaagsan ku nooshiin awlna waa arkaysaan goroyo waa arkaysaan dawaayo ma satin applicationka Wafi waa wehelka safarkayga haddii aan joogo Yurub, Asia, Africa iyo America waxaan ka dirsadaa lacagaha Soomaaliya ayaan ku soo wacaa waxaana ka maamushaa bangigayga kala soo deg adeegan Play Store-ka ama Apple Store-ka waxaan soo gaarnay banka labaad ee ugu weyn Somaliland waa banka Gariyaad waxaan ka soo baxnay Ceelgaal to Garissa waxa weyn 42 kilomitir hal geed kama baxo la harsado marka geedahan yar ku ka baxa laakiin geed la harsado male bal waxaan wadiina khabiirka oo Cabdirasaaq bal hay ada maalin walba xagan u baxaa Saylac to Boorama صح hay bankan caam xukun horta waxaan ku yahay gariyaad baa la dhahdaa dadka ku maamahaba aniga banka gariyaad hay ka qaadin hay waayo dee waa oomane hay geed la harsadana male oo mana biyo male ah hay geed la harsana male
male Ah. la harsado halkaan u taagan calaasada hay ka qaadin bay yidhahdaan haddaad aragto waan gartay ya yaa qofka sii dhimanaya miya saasuu kuleeyahay dhimasada ina ii ka dhantuu kuleeyahay markaa waa hagaag okay dee waa kaas male wax la harsado waa 42 xoolaha ka badayay soo ma deerada goroyada adiga aska safari oo kale waxaas oo kale ayaa ku badan waaya waxaan weeyaan khabiirka reer jigjiga hadda oo markii ugu horreysay soo boqotay bankan maxaa ka taqaanaa bankan horta waan ma yihiin taxbada kada xabada waa macnee laakiin bankan horta taariikh dheer buu leeyahay oo taariikhan ka akhriday meel badan ka fiirso oo kii awaaninta ku geeyay macnaha waxa ku ilaha sidii geed ku yaal bankii gariyaad goonidu waa mid lagu dowgalay macnaha qofka macnaha geed haduu ku yaal bankan waa geed gooniyo cidlaa wali macnaha aniguna saasan wehelaan wahay ku geebi jireen marka bankan waa geed bilaa wehel male marka wakiilaha sidii banku yaal geed bankii gariyaad goonidu waa mid lagu dowgalo marka gabadhu jecel yahay ku laa gooni baan ahay madam ku waay adiga taas waa jirtaa sidoo kale taariikho fog buu leeyahay markaad fiiriso taariikhaha waxaad arkaysaa dadkii soo duuli jiray xabashida iyo marka la gaala nimankii la oran jiray ay dhulkan yimaadeen bankan soo dhaafi kari waayeen gaajadiisa iyo haraadkiisa fahmi waayeen laakiin Soomaaliya dhulkan degay waa la qabsataa cimiladiisa iyo sida loo maamulo way la noolaataa marka bankan taariikh noocaas oo dheer dadkan marar badan wax la oran karaa badan iyo dhulka misaga badbaadiyay aawadi baa looga noqonay gaajadiisa abaarkiisay maadaama dadka sare boorleedu ha marar badan baa la oran taariikhaha ay warinayaan maadaama dadka boorleedu iyo xabashada iyo gaalul dhulka doog iyo barwaaqo la qabsadeen in dhulkan la qabsan waayeen ka guuri jireen oo kadib la difaaci jiray taana waa jirtaa sidoo kale waxa xusid mudan awaankii weynaa boqorkii aabihii fanka Soomaalida Cabdi Deeqsi Warfaa Cabdi Sinimo markii ugu horeysay fanka Soomaalida 1943 waa markii ugu horeysay san casriga Soomaalida la soo bilaabay balwo bal soo digay inuu balwadii ugu horeysay maxaan ku raadayay oo bankan gaari ka xumaaday dadka weyn oo maaragtay gaari weyn gaariga xaga ka xumaaday gaartana ka xumaaday si taariikhdu wariso kadib Djibouti wuxuu kala socon jiray Boorama ama Masaylic iyo wuxuu kala socon jiray maxaan ku raadayay Boorama gaari waxaan ka xumaaday uu helbu waayay marka kaliya waa daasadu qaraac jiray marka daasadaas ay noqotay Suuriya Soomaalida la qaaday marka waxay yiraahdeen wuxuu yiri sidii geed ku yaal bankii gariyaad goonidu waa mid lagu tagalay marka wakiilaha sidii geed ku yaal bankii gariyaad goonidu waa mid lagu dowgalay wajacaylkaaye taanu jirgoaye alla jannoy awada ma jiifsaday bankani waa ban cidlaa waa ban nomanaa mana siyaasa sharaxaysa in qofka macnaha waa booyoga uu qabo ay la mid tahay iyo cidladu dareemayo geed ku yaala bankan gariyaad minas geedka bankan ku yaalay waa geed kale aan weheleysan oo banka cidlada oo manaha in wax geedo weynba aanu ku olin way waxaan soo gaarnay dooxa Heemaal caan waxa ku ah durdurka ka khadar xaga biyaha isticmaaliya saaniga gaariga xoogaa waa kululaaday dooxa soo marinay ilaa fiqi aad wax badan baa noo dhiman waa ka gaariga buuxinaya biyaha haya waa kululaaday ha in biyo doona iyaga la leegayo ma qaadin biyo ma qaad laakiin baa qaarkood bulka joogaaba okay way waxaan soo marnay meel aad u kulul soo xeebta ka nimaanay xawayaan waxaan nimaanay meel aad u yar qabow xogaa buuraha xaga naga xiga meelahan tamaag ma aragta saan noqday dagaartay waa gaariga runta sheegnay ma kayf male hadda saaqo mukayfka naga hagaaji marka dambe waay marxaban buu yidhi waay waxaan nisanay xeeb haya ninkii way xeeb la yiraahdaa halkaas waxaan soo dhalanay gubal la yiraahdo manuga jooga sareeya dadka tusno durdurka biyaa soo soo ملعبة يا اوكي تو لعبنا مركز بلعب وايد بيلعب عندي وبيسمع مثل معاي انا كعصب هنا على مره بيهدوا علوشه وشم يا مقرت كبون بقبوجينيا رتك وحدكم waxaan isii يا وقبتي qoyaanku way qaadan karaa kawaa soo ما qoyaan ma qaadan karo waa gubaneed rutag gaariga waa kuleel wax walba kuleel مقرت سو biyaha xagu tagaya abdaasaq biyaha xagu tagaya biyahan way ku ayaan agaas ku dhamaadaan hagaas ku dhamaanaya waa intanu agaas ku bilaabmaya ilaa buuraas shaqaware buuraha shaqawaro ka bilaabmaya meela la shaqaware la yaqin
دول وين وامسك كيلومتر والله مو وين وبضيه اه شيخ هورم سنوتر لا بس عود لا بس اصلا واي ugu dambeyn waxaan soo gaarnay fiqiicada magaaladan fiqiicada waa ka mamnuuc inaa geedaha la jaro ha magaalada lagama jaro geed xeeray dhigteen soo arkaysaan waxaa naga dambeeya waa geedo waa kan xoolii faa'idada ko xilliga abaaraha ariga iyo xoolaha cuntay helayaan number 2 waxay ilaalinayaan dhirta deegaanka haddii la jaro khalaas meesha abaar noqonay so magaalada lagu daydo waa magaalo aad u yar laakiin ilaashatay dhirteeda riigan waxa la sameeyay 22 wuxuu qodan yahay 134 buu qodan yahay qolaha iyo ada ayaa noo sameysay oo dawladdu ay soo dirtay dabadeed intaas waxa ka maqan dararkii magaalada si loo galin lahaa qalabkii oo dhan ba ka dhiman waa soolarka soo tuura biyaha riiga ka soo tuura marka soolarka waxa ka xun dhowr xabo marka biyo awood lama soo saaray marka fad daruur ay soo gashaan ba ceeryaama timaado way istaagayaan magaalada waxa ku dhacaysa biyo la'aan ilaa fadkaas oo ka baxana biyo lama helayo ee waxa la sugayaa fadkaas markuu ka dhaqaaqo marka wuxuu u baahan yahay in soolarka la biiriyo qaybta ka xun laga saaro awoodna uma haysanaan kaga saarno aan ba ku bedelana ma haysano silacaasa in kaga cabnaa yaa budlaantaas hadda waxaan soo gaarnay iskuulka ay leedahay fiqi aadan waxaan la joogaa maamulaha asalaamu calaykum kusoo dhawo janagii ketisaan magaca walaal guuleed cumar ismaan baa dhahdaa waya guuleed iskuulkan gudaha ma geli karno horta iskuulka waya iskuulkan ma dugsi hoose mise waa dhexe mise waa secondary school dugsigu waa dugsi hoose dhexe koobaad ilaa 8aad buu ku joogaa keliya ardayda ka soo baxdana ardayda ka soo baxda boon ilaa boorama geb qalooda meelahaasaa loo kala diraa boon imse ni jirta boon xoogaa noo jirtaa 60 kilomitir bay noo jirtaa ilaa boorama intaasaa u tallaabsadaan school boarding oo geb la dhahdo xakan secondaryna waa jiraa mararka qaar dadku way tagaan kolba marxalad qof walba halkuu kulli family ku leeyahay buu u gudbaa markuu galaaska 8 dhameeyo hadda imka iskuulka waxa ku jirta 164 qof ku jirta imse galaas weyn 164 waa koobaad ilaa 8aad imse 8 galaas waa 6 galaas baa ka dhisan hadda galaaskan waa koobaadka iyo labaadka galaaskana waa saddexaadka iyo afraadka waa magalkana koobaadis hadda koobaadka halka mashruuc waxa ka socda dhismihii deyrka okay aan soo sheegnay waa deerka wala dhisaya deyrkii waa la dhisayaa deyrkan waxa korogadan dadka tusno waxa dawladda hoose Saylac ayaa dhisaysa deyrkan waxa noo ballan qaaday sanadkii 2024 bilowgiisii marxalad kala duwan oo soo maray adoo alxamdulillah maanta waa ka sawirkii yaala waa kun albaabadii iyo wax meesha la dhigay way xidhayaan deyrkii waa bilaamay brutal business bilaamay bariyo bilaamay alxamdulillah ana waa ka soo gaarnay ana hadda maanta subaxii Saylac ka nimaanay sax maanta waxaan ugu casuumayay fiqi aadan oo meesha ku dabsan classkan 1 iyo 2 was la dhigtaa okay عادي وكلاسك 1 iyo 2 سما 1 iyo 2 galaaska koobaadka iyo labaadka ay inta kursi kaliya tamiya mise kalaas kala jira waa galaaska kaliya laba galaas qof dhigta waxa ku dhigtaan uladu waa 22 qof oo bilow imika la qoray galaaska labaadkana waa 34 qof waxa safarista intaas isla fadhiistaan ciriiri bay ku jiraan dhididka xilliga xagaag oo kale lama kala dhigi karo oo la dhididaa aad macalinku buuq badan buu dareema waxa dhacday xisadina si fiican u qaadan waayaan maadaama laba galaas ay isku jiraan kuwan waliba waa yaryarihiin aad u yaryarihiin yaryarida ay yaryihiin darteed hadalkoodu waa fara badan yahay iyagoo saa u buuq badan ba haddana laba galaas wada dhigaynaa waa baahi jirtay iyo iskuulka ku taala haddii ardayga la iska daa uladii lama dhigay la dhaxdana de koowaadkii 8aadkii ma gaaray meeshii ma bajiraysa ka dhigantay hadda galaaska taxada afraad hadda tagna كانوا الباب سما كانوا الباب اللي قدسي ها الباب عصب يمكن اقول لسه
qoladan cusub bay dhashay كانوا صدح هذا أفراد ka sawirkii halkan lagu rogay سبرك حاجة على جورج ويا ha أوكي halkan loo qabsadeen waa saddexaad يا أفراد iyo afraad حتى سنة كعصب حتى ما سنة كعصب البلابي سكول كم يعمل بيش سديدات بلاود هذيك iskuulka bishii 8 baa la bilaabay hadda imtixaan baan galnay imtixaankii waxaan galnay 29kii bishii 12aad ee 2024 iyo xiisadii koobaad galnay 30kiina waan galnay 31kiina waan galnay saddex cisho deedna waxaan fasaxnay sanadkii cusbaa sanadkii loo dhanay maalintii koodeedii iyo fiskool fasaxnay هذا السمستر كله بعد وين may ha semesterkii baa labaad baa brito la bilaabmaya 20ka bishii bilaab فادرت هذا دير كله لسه saadirkii deerka la dhisaya iyadoo deerka socdo iyaan iskuulkana iska dhisanaynaa iska dhiganaynaa waxbarashadii la wadaya هذا waxay ugu tiri mar dhaweed iskuulku cuntu leeyahay soma feeding xagee ku cunaa marka feedingka cuntada xagee ku cunaa yaana bixiya WFP bixisa oo wasaaradda ay ka mas'uul tahay WFP WFP bixisa halkan waa storekii cuntada lagu la kaydkii iskuulka weeyaan store baa yaala weelasha iyo waxyaabahaas yaala hadda furaha storekii barka hayo waa maqan yahay hadda ma lagu kariyaa hadda waa maqan tahay cuntadii in bisha sideed ilaa hadda lama cunin waxba lama cunin ilaa sanadka cusub quraacay qado oo kula hayso wala aan jiray WFP keen jirtay labada mid ma jirto maxaa rajaynaysaa taas cuntadii taa waxaan ka rajaynaynaa in sanadkan la bilaabo dawladda cusubna bilowdo sidii awalna fiidin ku socon jiray loo soo celiyo iskuulada fiidin kale kulli gobolka degmada way yar yihiin dhowr iskuul baa fiidin leh dhowrka iskuul fiidin kale buu ku jiraa in la soo celiyo kulli waan ku baaqaynaa dawladda iyo hay'adaba waan u baaqaynaa in si degdeg ah noogu soo celiso iskuulka waxaa jira macallimiin baa dhigtaa aan meeshaar baan hay salariga macallimiinta qaata ee gunaysan macallin kale waa jira saddex macallin baan ku gunaysanahay laakiin iskuulka wuxuu u baahan yahay ilaa 7 macallin soo 7 xiisadood baa la dhigaa 7 xiisadood la dhigo 6 kalaas iskuulku maamuluhu waa ka madax bannaan yahay macallimiintaasi wax guna ama qaataan oo wasaaradda kama gunaysna hay'adna wax ma siiso deegaan ahaan wixii loo heli kara waa laga caawiyaa weli imka laakiin still waxay dadkaasi yihiin dad wax baan qaadan oo tamar ku dhiga oo dadka uga caawiya 4 macallin weeyaan ma gabadh iyo 3 wiil oo macallimiin wax lacag ma qaataan dadkooda dalkooda u shaqeeyaan tamarna way ku shaqeeyaan weli waxna laga soo wasaaradda ka soo gaadhin ma jirto marka xaga nooga faa'iideysanay wasaaradda waxa leeyahay macallimiintu bila mishaar kuma shaqeyn karaan wadad energy maalin kasta ka baxayo oo aroor kasta soo kala haya xaafad bay ka soo kala hayaan qaarkood waa xaasilay xaafadii markuu noqdo in hiyaraayad xaafadii lagu noqday kulli wax soo loo soo shaqeeyo u baahnaa maxaa soo shaqeysay warnay macallinkii waa ka niyad jabaya meesha dhowr arood markuu soo kala hadda 3 sano saas tabarc bay nagu shaqeeyaan deedinay ka dareeraan baa dhacdaa macallimiintii 3 sano ilaa guna qaar 4 sano ku shaqeey way joogaan wax mishaar ma qaataan wasaaradda markaa waxaan u baaqaynaa inay macallimiinta sanadkan cusub noo mishaaraysiiso ay ku darto maxaa ka wada 2025 ka misis August dawladda cusub ee imka dhalatay okay tan hadda socota tan ka socota wasiir cusub baa la magacaabay kulli wasiirka cusub inuu xawaasha xeebaha baahiyo badan ba jirto oo iskuulku kulli meelaha magaalooyinka hadda kormeer baa yimaada waa laga warhayaa anagu waxaan nahay dad kulli aad wadada meesha ku saalan way qalloocdaa in xeebaha laga warhayo wasiirka cusub xeebaha ka warhayo maas dugsiyadeeda iskuulkan wuxuu u baahan yahay macallimiinta gunadooda lacagtooda 4 macallin muddo 3 sano ka badan free ku shaqeynayaan waxa loo baahan in la dhiso deerka iskuulka waxa loo baahan cuntadii dib loo soo celiyo quraacay qadadii iyo meeshii ku cuniyeen feedingkii kalaasada 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ka oo isku jira yani 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ina la kala saaro kalaasyo cusub ina la dhiso waa kan xagana insha Allah ina arkaan wana maasatay gudoomiye waan عزمي سو أركسان أنت اسمه قالك كويجي أو كما ستة خضر أو كما ستة عبد الرزاق أو كما ستة أمين وحنت قلنا مقعد حكتا مغرب كحيرة نوردمان يا لما شيء مقعد حكتا السلام عليكم أنا قال سبسكرايب لايك كومنت